inkastoo ay daciif tahay axaadiista ku soo aroortay in dhegta looga addimo carruurta markay dhashaan, haddana waxaa lagugu addimayaa salaad la'aan. waxaase la yaab leh marka aad dhimatidna waxaa lagugu tukanayaa salaad aan aadaan lahayn iyo iqaamo toona. waxaa la yaab leh markaad caloosha hooyada ka soo baxaysay maadan ogeyn ciddii kaa soo saartay. waxaase la yaab leh markaaad dhimatid ma ogid cidda kugu qaadaysa garbaha. waxaase la yaab leh marka aad dhalatay waa lagu dhaqaa, waa lagu nadiifiyaa. marka aad dhimatidna sidoo kale waa lagu dhaqayaa, waa lagu nadiifinayaa. markay aad dhalatid hooyada iyo aabbaha waa kugu farxayaan oo qof lagu farxa ayaa tahay. marka aad dhimatidna dadkaadii ehelkaadii way kaa naxayaan. subxaana allah, ilaahiga ciid ka abuuray ayaa haddana ciid kuu celiyey. waa arrin cajiib ah. qofka markuu dhasho wuxuu ku jiraa mugdiyaal, caloosha hooyadiis iyo kuwa kale. marka aad dhimatidna dhulka hoostaysa ayaa lagu gelinayaa, qabriga ayaa lagugu aasayaa, oo halkaas ayaa mugdiyaal badan ku jiraysaa. subxaana allah, qofku markuu dhasho maryo ayaa lagu duuduubaa, marka uu dhintana maryo ayaa lagu duuduubaa. waad u jeedaan, calaaqa weyn ayaa ka dhexaysa. qofka adduunka markuu joogo waxaa la weydiiyaa maxaad soo baratay, maxaad taqaanaa, jaamacaddee ka soo baxday. sidoo kale maalinta qiyaame waxaa lagu weydiinayaa camalkaada muxuu yahay. qabriga keliga ayaa jirtid, qiyaamaha shahaadooyinkii adduunka kuma anfacayaan. haddaba waxaa lagaaga baahan yahay inaad aakhiradaada u shaqaysatid. shaki kuma jiro walaalkayga muslimka ahow, qof kastoo naga mid ah inuu dhiman doono oo geeridu dhadhamin doono. saasay tahay waxaa lagaa rabaa inaad adduunkaadan u shaqaysatid, aakhirana aadan hilmaamin. waxaa weeye naf walba waa la weydiinayaa wixii ay soo suubisay. haddaba ma isweydiisay qiyaamaha waxaad allah subxaanahu wa tacaala la hortegi lahayd. waxaan kugu baaqayaa walaalkayga muslimka ahow, qabrigaas yar ayaa ku sugaya. waxaana ku dhigaya dadka kuwii kugu jeclaa inaad toobadda u degdegtid oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keentid. ilaahay subxaanahu wa tacaala dembiyadeena iyo dembiyada waalidkeena dhaafo. ilaahay ou qof kasta oo mataqaana maqtacaan sii faafiya oo walaalihiisii gaarsiiya oo khayrka la jecelna u dembi dhaaf. xasuusnaada waa walaalkii naasir cadceed oo markasta khayrkiina la jecel. waxaanin xasuusinaya inaad like saartaan bejkayga, islamarkaana aad walaalihiin kale ku marti qaadaan. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.